السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو dhawaada kaba online academy ood ka barataan cilmiga ICT-ga accounting-ga. Maanta waxaynu duubi doonaa insha Allah 10 yar oo ku saabsan sida loo kala qaybsado computer-kaaga hard disk-kaaga computer-ka. Si aad hadda u kala qaybsato hard disk-kaaga waxaan sameynaynaa marka ugu horeysa waxaad tagaysaa file explorer-ka waana tagtaa file explorer marka tagto waa inaad marka hore ogaataa horta maxaad haysataa imsa GB oo hard disk-kaad haysataa. Su'aalahan imika inaga waxaan haysanaa waxa inoo free ah 900 oo GB baa inoo free. Okay, si hadaba in 900 laba qaybood u kala qaybino si ay hadhow tolan markaan computer-kan su'aalahan format gareeno inoogu fududaato xogteena ugu ridano waxaanu sameynaynaa PC-ga aynu right click siinana kadibna waxaanu taganaa manage halka ay ku qoran tahay oo kadibna waxaanu soo baxayaa optionskan waxaanu ka dooranaa disk management aynu mar taabanana ayarban click siinana markaanu sidan management disk management ka saaw nimaado waxay noo soo bixi doonaan laba qaybood kaasi waa systemka qaybtana waxa weeyaan waxa su'aalaha system server oo kala weeyaan qaybtana waxa weeyaan local C-geeni kadib local C-geeni imika waxa weeyaan marka la isku soo wada duubo waxa weeyaan waa 930 GB weeyaan macala gabi marka isku wada daro marka imika waxay noo banaan su'aalahan kale waxay noo banaan maxay 900 oo GB baa noo banaan su'aalahan waxaan doonaynaa inaynu 400 GB aynu ka dhigno local C-deena local D-deena oo su'aalahan C-dan aynu 500 ka dhigno maxay D dhammaan sameysana amba mid doonto magac doonto bixin karto aynu ka dhigno maxay 400 GB. Okay, right click baa siinaysaa kadibna shrink value halka volume ay ku qoran tahay baa taabanaysaa kadibna in yar waqti yar baa sugaysaa way ku soo baxaysaa. Imika waxa weeyaan intan marka isku soo wada duubo waxa weeyaan waa 920 GB oo kale tusaale inagu waxaan doonaa inaanu ka dhigno imika intan waxa weeyaan oo MB marka loo bedelo GB ga tusaale waxay noqonaysaa 920,899 waxa weeyaan MB bay noqonaysaa GB na waxay u noqonaysaa tusaalahan waa 920 GB tusaale inta ma iska masaxnaa kadib waxaan ka dhiganaa 400 oo MB 400 oo kun oo MB oo inoogu dhiganta 400 GB kadib waxaan oranaa shrink kadibna in yar baan suganaa waqti yar ay qaadan doontaa ay noo soo baxaysaa okay maxay noo soo baxay 390 GB kadibna right click baan siinaa kadibna new baan oranaa volume kadibna next baan oranaa kadibna ma hubtaa la qornaa intaas tusaale kale inay tahay haaba orasa next kadibna halkan barta magac uga bixi ama D ka dhigo ama A ka dhigo hay xarafka doonta tusaale D baan ka dhiganaa kadibna okay baan soo orna kadibna halka magac wala bixi tusaalahan waxaanu ka bixinaa kale Cabdi Raxmaan oo kale ka dhiganaa magaceena kadibna next kadibna finish saas uu inagu sameysmay local maxay ahaydeen D-geeni oo ah qaybteeni partition ka qaybteena labaad aynu hubino baleeno inoo sameysmay kale laba qaybood oo inagu kala qaybsameen local C iyo Cabdiraxmaan oo D marka qaybteena C-deen originalka waxay noogu soo haray 509 GB halka qaybteena ayaa inoo free ah inta tusaalahan total ahaan wuxuu isku noqonayaa ilaa intaan isticmaalno Windows ku jira 540 GB qaybteena labaad ee imika sameysnayna waxay noo noqonaysaa 390 GB ayaa inoo free ah oo waxba inoogu jiraan wadi hadhow tola halka mid datadeena ku shuman doona ama xogteena intaas inuu soo koobi doona cashirkeeni. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.